waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oonu kusoo qaadano wararka iyo warbiximii ugu dambeeyey. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta, ciyaartooyga Sadio Mane iyo koobka adduunka, sidoo kale weeraryahanka kooxda Napoli oo ay doonayso kooxda Manchester United, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta. hadaynu ku bilowno ciyaartooyga Sadio Mane ee weerarka uga ciyaara kooxda Bayern ayaa la sheegay inuu dhaawac ku seegi doono koobka adduunka. Sadio Mane ayaa dhaawac uga baxay kulankii ugu dambeeyay ee kooxda Bayern ee ciyaarto horyaalka Bundesliga. haddaba Sadio Mane ilaa hadda ma jirto wax rasmi ah oo ciyaartooygani sheegay, balse sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta Faransiisku, ciyaartooyga Sadio Mane ayaa la filayaa inuu seegi doono koobka adduunka. Sadio Mane oo ka mid ahaa xidiga koobaad ee xulka qaranka Senegal, sidoo kalena ahaa xidigii ku hogaamiyey xulka qaranka Senegal inay sanadii hore ku guuleystaan koobka qaramada Afrika, ayaa ahaa ciyaartooygu ku hogaamiyey inay ka qayb qaataan ama ay soo gaadhaan dhammaadka koobka adduunka. haddaba Sadio Mane ayaa waxa uu ka maqnaan doonaa xulkiisa qaranka Senegal koobka adduunka ee 12 maalmood kadib ka dhici doona wadanka Qatar, halka ay kooxda Manchester United ay raadinayso weeraryahankii bedeli lahaa ciyaartooyga Cristiano Ronaldo oo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Manchester United. haddaba kooxda Manchester United waxaa jirtay ciyaartooy ay awoodda saartay ama waxaa jiray kuwaas oo ahaa ciyaartooydii la filayay inay bedeli doonaan Cristiano Ronaldo, waxaana ka mid ah ciyaartooyda ugu cadcad ee kooxda Manchester United isha ku hayso weeraryahanka kooxda Napoli ee Victor Osimhen. haddaba waxaa la filayaa ciyaartooygan inuu qiimihiisu aad u sareyn doono kadib markii uu sheegay madaxweynaha kooxda Napoli ciyaartooygan inuu ku fasaxi doono ama uu ku iibin doono qiimo lagu qiyaasay 100 milyan oo euro. sidoo kale ciyaartooyda isha u saaran kooxda Manchester United ay suuragal tahay inay ka ciyaaraan ama ay bedelaan booska ciyaartooyga Cristiano Ronaldo ayaa ah weeraryahanka kooxda Red Bull Salzburg ee Sesko. haddaba kooxda Manchester United ayaa isku diyaarin doonta sida ay u bixin lahayd booska ciyaartooyga Ronaldo oo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Manchester United bisha January ama dhammaadka xilli ciyaareedkan. sidoo kale ciyaartooyga kooxda Chelsea ee Reece James ayaa isaguna si rasmi ah u seegi doono koobka adduunka. ciyaartooygan ayaa markii hore waxaa jiray dhaawac soo gaadhay, balse dhaawaca waxa uu ahaa mid adag, waxaana la filayay inuu muddo maqnaan doono, waxaana jirtay rajo ahayd ciyaartooygan inuu kasoo gaari karayo ama uu ka qayb qaadan karayo koobka adduunka. haddaba ciyaartooyga Reece James ayaa isagu si rasmi ah waxa uu maanta u shaaciyey inaanu ka qayb qaadan doonin ama aanu ciyaari doonin koobka adduunka ee ka dhici doona wadanka Qatar, waxaana ciyaartooygani ku biiray ciyaartooyda koobka adduunka ku seegi doona dhaawaca, oo waxaa ka mid ah ciyaartooyda dhaawaca ku seegi doonta ciyaartooyga kooxda Chelsea ee Reece James, sidoo kale ciyaartooyga Lo Celso, Diego Jota oo ciyaara xulka qaranka Portugal iyo kooxda Liverpool, Sadio Mane, ciyaartooyga N'Golo Kante, Paul Pogba oo isaguna Faransiis ka soo jeeda, Chilwell oo isaguna u ciyaara kooxda Chelsea iyo sidoo kale xulka qaranka Ingiriiska, ciyaartooyga Timo Werner iyo ciyaartooyga Wijnaldum oo ciyaara kooxda Roma iyo sidoo kale xulka qaranka Holland, halka uu ciyaartooyga Son isagu uu ka badbaaday inuu ka mid noqdo ciyaartooydii ka maqnaan lahayd koobka adduunka. ciyaartooyga Son waxaa jiray dhaawac ka soo gaadhay kulankii ugu dambeeyay ay kooxda Tottenham ciyaartay koobka Champions League, waxaana la sheegay ciyaartooygani inuu qalin u baahan yahay, kaas oo ka dhigaysa ciyaartooygan inuu ka maqnaado ama uu seego koobka adduunka. haddaba Son ayaa maanta waxa uu sheegay inuu si rasmi ah uga qayb qaadan doono koobka adduunka, sidoo kale uu noqon doono hogaamiyaha xulka qaranka Korea. ciyaartooyga Son ayaa ah kabtanka xulka qaranka Korea, waxaana la filayaa inuu ciyaari doono koobka adduunka kadib markii ciyaartooygani si rasmi ah u sheegay inuu ka qayb qaadan doono koobka adduunka, halka uu ciyaartooyga Cristiano Ronaldo uu diyaar garoobayo siduu uga tagi lahaa kooxda Manchester United bisha January ama dhammaadka xilli ciyaareedkan. ciyaartooyga Cristiano Ronaldo ayaa isku dayay bilowgii xilli ciyaareedkan inuu ka tago kooxda Manchester United, balse mas'uuliyiinta kooxda iyo sidoo kale tababaraha ayaa u sheegay Ronaldo inuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan, sidaa darteed aanay kooxdu fasaxi karin. haddaba Ronaldo oo isku dayay inuu ku biiro koox ka mid ah kooxaha ciyaara Champions League ama kooxaha ka qayb qaadanaya xilli ciyaareedkan koobka Champions League, ayaan kooxda Manchester United bilowgii xilli ciyaareedka iyo sidoo kale kulamada ay kooxda Manchester United iskugu diyaarinaysay xilli ciyaareedkan aan ka qayb qaadan. haddaba arrinkaas ayaa sababay inaanu ciyaartooyga Ronaldo aanu si joogto ah ugu ciyaarin kooxda Manchester United ama aanu ka qayb qaadan ama aanu ka mid noqon line-upka kooxda Manchester United. haddaba ciyaartooyga Ronaldo ayaa hadda isku diyaarinaya inuu ku biiro koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara koobka Champions League, maadaama uu doonayo ciyaartooygan inuu sii wado rikoodhkiisii ahaa goolaliyaha taariikhiga ah ee koobka Champions League kadib markuu ciyaartooyga Lionel Messi u soo dhawaaday, oo hadda waxa uu dhexeeyo 12 gool oo kaliya. dhinaca kale waxaa la soo saaray liiska xulka qaranka Croatia oo waxaa ku jiray ama ciyaartooyda ugu cadcadeyd ee ciyaarisay ayaa ka mid ahaa ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Gvardiol iyo ciyaartooy kale.
haddaba ciyaartooyga Luka Modric ayaa waxa uu ciyaari doonaa xulka qaranka Croatia koobkii adduunka ee afaraad oo Luka Modric waxa uu soo ciyaaray xulka qaranka Croatia 3 koob adduun oo hore 2010 koobkii adduunka ee lagu qabtay wadanka South Africa 2014 koobkii adduunka ee lagu qabtay wadanka Brazil iyo 2018 koobkii ka dhacay wadanka Russia haddaba waxaa la filayaa koobka adduunka ee ka dhici doona wadanka Qatar inuu noqon doono koobkii adduunka ee afaraad ee ciyaartooyga Luka Modric uu ciyaaray xulkiisa qaranka Croatia ciyaartooyga Karim Benzema ayaa isaguna la filayaa inuu ka maqnaan doono kulanka ugu dambeeya ee kooxda Real Madrid ciyaari doonto horyaalka La Liga ka hor intaanu bilaaban koobka adduunka oo kooxda Real Madrid ayaa maalinka bari ah waxay la ciyaari doontaa kooxda Qadish kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka La Liga ciyaari doonto ka hor koobka adduunka haddaba Karim Benzema ayaa la filayaa inuu kulanka dhaawac ku seegi doono ciyaartooyga Karim Benzema waayihii ugu dambeeyay ama kulamada ugu dambeeyay waxa uu dhaawac kaga maqnaa kooxda Real Madrid haddaba Karim Benzema shantii kulan ee ugu dambeeyay kooxda Real Madrid ciyaarto marka laga reebo hal kulan oo uu ciyaaray kaas oo bedel ku soo galay kulamadii kale oo dhan waxa uu ciyaartooyga dhaawac uga maqnaa kooxda waxaana la filayaa ciyaartooyga Karim Benzema sidoo kale ama dhici karta inaanu ka qayb qaadan doonin ama aanu kasoo gaari doonin kulanka ugu horeeya ee uu ciyaari doono xulka qaranka Faransiiska koobka adduunka Karim Benzema ayuu isku dayay tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti inuu nasiimo siiyo balse ciyaartooygan ayaa hadda waxaa la filayaa inuu seegi doono sidoo kale koobka adduunka kulanka ugu horeeya ee uu ciyaari doono xulkiisa qaranka France sidoo kale ciyaartooyga kooxda Real Madrid ee Rudiger ayaan isaguna ka qayb qaadan tababarkii kooxda Real Madrid ciyaartooygan ayaa isagana waxaa jiray inuu dhaawac ka cabanayay balse ilaa hadda ma jirto wax la sheegay ama si rasmi ah in loo sheegay ciyaartooygan muddada maqnaanayo ee xilliga uu soo laabanayo halka uu ciyaartooyga kooxda Real Madrid khadka dhexe uga ciyaara ee Federico Valverde uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu fiicnaa kooxda Real Madrid bishii la soo dhaafay Federico Valverde ayaa sidoo kale bishii hore waxa uu ku guuleystay ciyaartooyga ugu fiicnaa horyaalka Spain ee La Liga iyo sidoo kale ciyaartooyga ugu fiicnaa kooxda Real Madrid haddaba Federico Valverde oo ilaa hadda ciyaaraya xilli ciyaareed aad u fiican ayaa ku guuleystay markii labaad oo xidhiidh ah ciyaartooyga ugu fiicnaa kooxda Real Madrid ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Napoli ee Spalletti ayaa ku guuleystay abaalmarinta tababarihii ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A kadib markii ay kooxda Napoli 10 kulan ee ugu dambeeyay ay badisay oo kulamadii ugu dambeeyay gaar ahaan 10 kulan ee ugu dambeeyay ay kooxda Napoli ciyaarto horyaalka Talyaaniga ee Serie A dhamaanba waxa ay soo qaadatay 3 dhibcood sidoo kalena kooxda Napoli waxay ku jirtaa kaalinta koobaad ee horyaalka Talyaaniga ee Serie A waxayna 8 dhibcood kaga haysaa kooxda kaalinta labaad ku jirtay ee AC Milan kadib markii ay AC Milan bareejo gashay kulankii ugu dambeeyay ay ciyaartay shalay haddaba tababarahan ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta tababarihii ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A bishii la soo dhaafay haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like subscribe na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe